dugsiyada al-irshaad iskuul. bismillaah salaatu wasalaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. waxaan salaamay cabdiraxmaan xasan oo salaamay bilahan ardayda al-irshaad gaar ahaan fasaladii saddexaad waa maadada ingiliishta. diiwaanka casharka aynu maanta dhigan doonaa ardayda thesis xaliima. tani waa thesis xaliima. pageka aynu kala socon doonaa buuggeena ardayga waxa weeye pageka koobiyo afartanaad. listen and read dhegeyso oo akhri. listen and read dhegeyso oo akhri. xaliima ayaa hadalkii bilowday. waa ardayda macalimideedii iyo Masar Salim oo ah aabaheed. xaliima aabaheed. waa introduction, waa cashar ka mid ah casharada isbarashada ama sida dadka la isku baro weeye. xaliima ayaa hadalkii bilowday ardayadii. good morning, subax wanaagsan Mrs. Khadija. macalimideedu way la hadlaysaa. good morning, subax wanaagsan Mrs. Khadija. Khadija hadashay waxay tiri good morning, subax wanaagsan xaliima. xaliima tiri this is my father, waa aabahay Mr. Salim. Mr. Salim baa la dhahaa. waa hab ka mid ah habka formal introduction habka la isku baro dadka isagoo magacii qofka la sheegaya. this is my father, kan waa aabahay Mr. Salim. Mr. Salim baa la dhahaa. Salim. xaliima hadashay waxay tiri this is my teacher. waxay baraysaa macalimideedii waxay tiri this is my teacher. iyadun baa labada jeerba hadashay. marna aabaheed bay sheegaysaa, marna haddana waxay u sheegtay in aabaheed bay macalimideeda u sheegaysaa inuu yahay kani aabaheed. this is my teacher. aabaheed bay ku leedahay this is my teacher, kani waa macalinkaygii ama macalimaddaydii Mrs. Khadija. Mr. Salim good morning, subax wanaagsan Mrs. Khadija. macalimaddu salaamay aabaheed. how are you, iska waran sidee tahay? Mrs. Khadija tiri fine, fiican, thank you, mahadsan. Mr. Salim you are welcome, adaa mudan. you are welcome, adaa mudan. casharkeena haddaan mar labaad ardayay idinku celiyo. listen and read dhegeyso oo akhri. listen and read dhegeyso oo akhri. xaliima oo ah ardayad ayaa waxay isbaraysaa macalimadeedii oo la yidhahdo Mrs. Khadija iyo macalinkeed iyo aabaheed oo la yidhahdo Mr. Salim. xaliima hadalkii bilowday ardayadii good morning bay tiri subax wanaagsan Mrs. Khadija. Mrs. Khadija hadalkii iyadana good morning, subax wanaagsan xaliima. xaliima hadashay tiri this is my father, kan waa aabahay Mr. Salim baa. xaliima tiri this is my teacher. xaliima waxay tiri kan waa macalimadaydi Mrs. Khadija. Mr. Salim waa good morning, subax wanaagsan Mrs. Khadija. macalimaddu ku salaamay aabaheed. how are you, iska waran Mrs. Khadija tiri fine, fiican, thank you, Salim. Mr. Salim baa yidhi you are welcome, adaa mudan. you are welcome, adaa mudan. exercise-ka mana arday oo kasoo shaqeynaysaa kadib markaad casharka si fiican dhegeysto insha allahu tacaala. fill in the blank spaces. fill in the blanks ku buuxi meelaha bannaan with the following words. kelmadahan soo socda. kelmaduhu waa kuwee how, morning, you, it, why. kelmadahaasaa muddo meel bay gelaysaa marka. good baa ka taala dash xaliima. halkaa dash baa tira morning baa kasii joogta Mrs. Khadija. how are dash ayaa ka taala su-aal. waa hadal su-aal la socda aan dhamaystirnayn laakiin halkaana way buuxinaysaa thank you and Salim dash and you dash are you baa ka taala. marka kelmadaha halkaa yaala ayaa mid kasta ku buuxinaysaa meesha ay leedahay ayaad ku buuxinaysaa kadibna hadal dhamaystiran ayuu noqon. buuggaaga ardayga ku guuri kana soo shaqeey insha allahu tacaala. aad baan idin salaamay macaan. thank you very much. aad baan idin salaamay macaan. le idinkoo nabada iyo anagoo nabada. assalaamu calaykum waraxmatullahi. dugsiyada al-irshaad iskuul.